wadankiina wax u barta wadankiina wax u barta oo xambaaro waajib. Bismillahir Rahmanir Rahim. Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh. Waxaan soo dhameynay chapterkii labaad English grammar-ka. Haddana maanta waxaan galeynaa chapterka saddexaad kaasoo nagu hadli doona dhammaan waxa la yiraahdo ama qaabka loo isticmaalo simple present-ga. Macnaha halkan waxaad ka fahmi kartaa inaan dib u bilaabayno ama aan bilaabi doono tense-ka. Tense-ka waxaan ka bilaabaynaa the simple present, xilliga la jooga ee simple-ka ah ama xilliga marka aad taagan yahay. maadaama codsigu uu ahaa in tense-ka aan soo geliyo, tense-ka macnaha dad badan waxaan ku yiri waa soo socdaa. macnaha sida balanteed soo socoshadana macnaha grammar-ka qaabku u socda ayaa waxay tahay in tense-ka hore aan hal mar ka wada gelin laakiin qayb aan ka galo. Marka waa la dul qaadanaya. Hadda simple present oo kale waxaan ka bilaabay haduu leeyahay form and basic meaning of the simple present tense. waxa uu yahay formkiisa qaabku uu sameysmo iyo qaabka loo dhigo jumlada iyo basic meaningkiisa meaning ama macnaha asaasiga uu leeyahay. kadib within that waxaan uga dhaxli doonaa midda gudaheeda frequency adverb waxa la qaabka loo adeegsado. frequency adverb waxa la yiraahdaa adverb-ka shayga soo noqnoqdo maalin kasta, subax walba, duhur walba, galab walba, something like that. Then other frequency expressions. Then frequency adverb-ka qaabka loogu adeegsado anagoo adeegsanayna ficilka be ama verb be. kadib waxaan fiirinaa spelling and pronunciation of final es ereyada qaata dhamaadka spelling-kooda iyo qaabka loogu dhawaaqa marka es lagu darayo. Then adding final es or s to words that end in y. Okay, erey waxa ku dhamaanaya jiro y ama ya sida loo yaqaano. So finalka qaabka s loogu daro ama es in plural terms-ka aan fiirinayna. kadib waxaan fiirinayna waxa la yiraahdaa irregular singular verbs-ka. verb-ka oo singular ah in irregular form. Hore waan u soo aragnay ayagoo regular irregular goodan galeena haduu leeyahay. Then after that spelling and pronunciation of final es and s. kadib simple present in form of negative waa verb-ka xawli waa tense-ki. simple present yes and no question. waxaan rabnaa marka simple present ayadoo tahay in su'aalo aan sameeyno ha iyo maya qaabka jawaabta ay u noqon lahayd. Then the simple present taas oo information lagu weydiinayo oo anagu adeegsanayno waya xagee jira xagee ka socdaan xagee leeyahay. Then the simple present asking information when goorma anagu adeegsanayno. Then after that we will wind up. So intuu nagu qaato waan arkaynaa haduu Allaha awoodda leh idmo. Okay, let's start. Bismillah. So form and basic meaning of the simple present. Form and basic meaning of the simple present tense angalena. Waa formka qaabka uu yahay tense-kan iyo macnaha asaasiga ah. For example, waxaan ka bilaabayaa ereyga she walks. She walks meeshan s aan ku darnay. waan arki doonaa why verb-kan uu s u qaato. Okay. sida caadada inooga ahayd waxaan u kala qaadaynaa first person, second person iyo third person, singular iyo plural. qof gacanta koobaad, gacanta labaad iyo gacanta saddexaad, mufrad iyo jamac. first person markaan idhaahaa I waa first person saas ku ogeyn. second person wuxuu ahaa you. third person wuxuu ahaa she, he, it. pluralkoodana first person uu ahaa I, we. second person you. third person she, he, it. oo pluralkoodu noqonaya they. So first person gacanta ka badan dhaha I walk wax s lama jirto. pluralkeeda muxuu noqonayaa we walk. There's no s at the end. Second person you walk. There's no s in the verb. But third person markaan imaano waxaan leenahay she walks, he walks, it walks. Then pluralka waxay noqonaysaa they walk. There's no s. Okay. Let's start and build a sentence. jumlad aan dhisno marka. Here waxaan ku haysanaa Monday, Tuesday, Wednesday, Thursday, Friday, Saturday and Sunday. These are the days of the week. Days of the week cashir kale kumaan soo qaadan sababtoo ah most of the people are familiar with this. yani qof walba inta badan dadku waa la yaqaanaa. So haddaan idhaha I eat lunch every afternoon. aniga waxaan cunaa eat. waxaan cunaa lunch qado every afternoon galab walbo, duhur walbo macnaha. duhur walbo. So every afternoon means duhur walbo. waxa waaye day in day out. waa Monday, Isniinta, Talaadada, Arbacada, Khamiista, Jimcaha, Sabtiga, Axadda. macnaheedu waxaan ka fahmaynaa
inay tahay qofkan uu daily cunayo routine waaye routine waxaa la yidhaha shay joogto ah laakiin maxaan dhihi karaa Max drives to work every day so every afternoon and every day waxay ku kala bedelan yihiin bas ah waqtigii laakiin waa maalin kasto joogto ah waa every afternoon duhur walba every day maalin kasto so maalin kasta duhur way leedahay maalin kastana casr way leedahay maalin kastana subax way leedahay so marka meeshan it iyo estan I mean drives iyo it waxay est ku kala qaateen waxay tahay Max waxaan u fasiro waa inaad ka fikirtaa inuu yahay rag ama dumar so waxaan leenahay he drives to work every day means waa maalmahan dhammaantood from Monday to Sunday laakiin usbuuca Soomaaliya oo kale wuxuu ka bilowdaa Sabti Axad Isniin Talaada Arbaca Khamiis Jimca like that we get up every morning so اسم raacayo verbka so we get up every morning get up means waan soo kacnaa subax walbo alxamdulillah subaxii qofka duusan xanuun ama waxyaabo kale aysan qabsan we get up anaga waan soo kacnaa subaxii every morning marka u fiirsa erayadan isticmaalaya every morning every afternoon every day wixii aan ka wada marka waan ogaan doonaa qaabka simple presentiga uu ku soo saarmi lahaa okay Kyle calls Mimi every weekend Kyle is a lady so maxay noqonaysaa she calls Mimi every weekend isbuuc dhamaadkiisa walba way wacdaa isbuuc dhamaadkiisa dadka qaar Thursday Friday hadduu Soomaali ka yahay caalamka kale wuxuu ka yahay Sabti iyo Axad ama Saturday and Sunday so every weekend means weekend kasto marka waa joogto waa every weekend now intaas adigu oo mar taqaanid waxaad ogaataa marka simple presentka ama simple present tense-ka inuu u shaqeeyo waxa la yidhaahaa habit maxaa waaye habit waa wax yani dhaqan ah or you can say usual activity waa ficil ama dhacdo qofka uu sameeyo joogto uu sameynayo usual activity waa daily okay let's do a little practice and see if we have captured at least something small we dash television every day so we waa first person pronoun plural marka first person second person third person adoo eegaysid maxay qaadan jireen kee s qaata keena qaadanin so we watch television every day he dash television every day he waa third person marka waxay noqonaysaa he watches television every day he asaga watch wuxuu daawadaa televisionka every day we dash lunch at 12 tan waxaa kaloo la dhihi karaa noon waxaa la yidhahaa 12 noon waxaa la yidhaha marka qoraxda ay ku taagan tahay dusha sare ama kala bartimaha cirka iskool noon 12 am 6 saac markaad u fiiriso 6 saac juusta ay tahay saacadda banaanka haddaa istaagta hoos ma liid hooska adigu kugu dhamaanaya bidixna uma baxa midigna uma baxa kii subaxina wuu soo dhamaanaya kii galabkiina ma bilaaban so waxaa la yidhaha noon so we dash lunch at 12 so maxay noqonaysaa we eat because waa first person plural Jara dash a walk in the morning Jara is a lady so she maxay noqonaysaa she takes a walk in the morning Jara takes a walk in the morning Jara way socotaa subaxii so waa caafimaad sida la sheegay in subax la socdaa my friend dash her horse every day so my friend dash her horse mar hadda aragto waxaad ogataa inay tahay your friend inuu yahay dumar so she dash her horse every day right saaxiibaday waxa ay kaxaysaa hooskeeda faraskeeda subax walba horse waa faras ride-na waa kaxayn so there is difference between ride and drive ride waa shay kasta qofka asaga uu u adeegsado waxyaabo ficil si uu ku kaxeeyo ama ha garaaco ama lugaha ku wareejiyo sida biskileti oo kale tani kulada daba xiisa la casharkan dambe waxaan qaadanaynaa wax la yiraahdo using frequency adverb-ka. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu.